garbaduub raggii loo xidhxidhay lana galooleeyey gomadaha raggii la isu sudhay gaabatada lowga gaadhyada xamuulkaa raggii qurada loo saaray gunyada sideedii raggii gaalka laga iibshay gulbad xoog le nimankii galaay lagu gidhaashayey nimankii garaaciya xabsiga goondhar lagu geeyey nimankii ganaaxkii baxsaday guudka laga saaray gumaysiga inay daafacaan kuna gataan naarta iyagaa khiyaarkood ku galay una galiilyooday afgobaadsi weeye markuu gole ka sheegaya waa hadal gadaafa ah haddaan laga garaabaynay inkastuu guyaal badan jiro guudka ka cirraysta oo aan gabow u laabnayn haddeer garasho mooyaane malaa khadar godkii aakhiro iyo geeri filan maayo hubka labada geesood ragaan saanad garanaynin oo aan gelin dagaal hore markii guuto lagu saaray goonyaheeda baadhamar raggii lagu gumaadaaye geeri foolxumaan badan raggii gabawar loo saydhay gabaahir markay kaga tageen mayd la guran waayey gacalkood ma aasina raggii gegida loo daayey gorgor hilibka boobya raggii haad ku kala goostay iyagaa khiyaarkood ku galay una galiilyooday afgobaadsi weeye markuu gole ka sheegayo waa hadal gadaafa ah haddaan laga garaabayne malaha khadar godkii aakhiro iyo geeri filan maayo markii ay ku gaadheen dantii loo gungimay goorxun kuwa gumucu naafeeyey ee gabay laxaadkooda garashadu kolkay suushay qayb nabarradii gaadhay gidaarrada wixii ay barhkood gaajo ugu laysay darxumada waxay ugu go'een geeri loo dhalaye iyagaa khiyaarkood ku galay una galiilyooday waa hadal gadaafa ah haddaan laga garaabayne malaha khadar godkii aakhiro iyo geeri filan maayo ilmaadeerayaalow ha layga qaado kelimaadkan kooban hana la iga gaadhsiiyo madaxweyne hore dowladdaanka Soomaaliyeed adeerka Khadar Macallin ilmaadeerayaalow bartuu joogo ugu geeya maalin dhaweyta waxaan akhriyay jawaab uu ka bixiyay su'aal laga weydiiyay dhalinyaradii laga raafay deegaanka Soomaaliyeed 1998 ilaa 2000 xilligii uu socday dagaalka u dhaxeeyay Eritrea iyo Ethiopia degmooyinka kala duwan iyo gobollada kala duwan ee deegaanka Soomaaliyeed dhalinyarada laga kixiyay oo laga duubay oo laga daabulay oo laga raafay si qasaba waxay noqdeen wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay oo naafadoodii markii dambe lagu soo qubay jigjiga saa la iga sheegay taariikhda la igaga warramay Allah u naxariistay aniga aabahay raggii ku dhintay buu kamid ahaa waxaan leeyahay adeerka Khadar Macallin kulley haddii aad ka galgalanayso eedaymaha iyo dhaliilaha ay ku soo jeediyeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed saxafiyiintuna ay ku weydiiyeen waxay ahayd inaad ku galgalato ama aad ku afgobaadsato waxyaabo ra'yiga bini'aadanka ka gadmi kara laakiin waa laga qurux badnaa inaad meeytidii hafarto waxaan leeyahay intii dagaalka ku naf weyday Allah u naxariisto iyagoon tababar ciidan qabin iyagoon khibrad dagaal lahayn dhalinyaro inta la soo ururiyay meel laba quwadood oo ka awood badan ay ku hardamayaan afka lagaga shubaya kul aatay intii ku dhabatay Allah u naxariisto intii ku naafowdayna ee wali la tabaalaysan Allah u gargaaro duruufaha ka soo gaaray intii la waalatay la miyir baashayna Ilaahay xuskooda miirkooda u soo celiyo haddii aad oran lahayd dhalinyarada waa la raafay awoodna uma lahayn aan kaga hor istaago cidina waxba igama su'aalayna waan ku cudur daari lahayn oo waan rumaysan lahayn laakiin waxaan noo cadaatay oo noo xaqiiqowday Khadar Macallin oo inaad kursi siisatay aabayaashayo oo sanad iyo 2 bilood hal lagu gudayo kursiga aad meel sanabay ugu raali gelisay waayo dhalinyarada sida qasabka ah lagu raafay ee lagu qafaashay baa waxaad leedahay oo naga dhaadhicinaysa maanta iyaga kalgacal iyo xiisaa ay u qabeen isku qoray iyaga diyaaradihii goday ka daabulayay ka duuli kari waayeen inuu hor istaagay hana la qaado iyaga markii hoorse la geeyay shaybaarka caafimaadka la mariyay kuwii xanuunada laga helay ee gudbi waayay iyaga ooyay baad naga dhaadhicinaysa waxaan madaxweynuhu malaha ehelkii iyo qaraabadii baabuurtii lagu daabulayay ka daba ooyay dambiyada haystay qasabka lagaga daadinayay buu malaha dad kalgacal iyo xiiso qabo iyaguna inay isqoraan ciidanka oo ay ku biiraan raba miyuu moodayay baan madaxweynuhu